xalfadda waxay qusaysaa dhowr ujeedada koowaad waxa weeye anigoo ah maamulihii hore ee Machadka Jiriban Technical College waxoogaa hawlo igu timid maamulka waxaa loo magacaabay machadka waxaa loo magacaabay maamul cusub marka waxa la yiraahdo xalfaddan kow waa xil wareejin maamulkii hore iyo maamulka waxa la yiraahdo cusub oo la magacaabay ujeedka labaad waxa weeye kala warqaadashada waalidiinta ama dadka ka faa'iideysta machadka iyo dadka asaasayaasha oo nagala joogo gudoomiyahoodii guddigaas asaasayaasha Master Calas Cali Mire oo nagala joogo sadarteed waxa la yiraahdo waalidka waxaan xoog u saarnay oo ugu yeernay oo waxa la ardada ugu dirnay waxay ahayd wixii warbixin ah ama wixii cabasho ah ama wixii fikir oo ay hayaan inay la wadaagaan guddigaas oo nagala joogo gudoomiyahoodii nagala joogo waxa la socday Sheekh Yaxya oo isagu waxa la xogaa hawlo ku timid naga degdegay laakiin gudoomiyihii maadaama nala joogo waan ugu filan tahay marka wixii fikira oo aad haysaan ka waarid ahaan wixii cabasho ah oo aad haysaan ka waarid ahaan wixii aad doonaysaan waxa la yiraahdo in machadka laga bedelo ama lagu siyaasho waxaad joogtaan xilligii waxa la yiraahdo aad ka warrabi lahaydeen oo aad waxa la yiraahdo isweydaarsan lahaydeen qodobka waxa la yiraahdo saddexaad waxa weeye ogeysiinta bulshada degmada Jiriban aan ogeysiinaynay in la furay machadku inuu sanad dugsiyada cusub galay sida hadda boorkan iga dambeeyay ku qoran sanad dugsiyadka cusubna arday la qaadanayo ardadaas loo qaadanayo qaybaha Ingiriiska iyo qaybaha kombiyuutarka loo qaadanayo gaar ahaan computer course loo qaadanayo in bulshada la socodsiiyo waxaan filayaa dadka qaar hore way ula socdeen oo khadka iyo meelahaas la dhigay saddexda qodob ugu waaweyn ujeedooyinka xalfaddan saddex bilood buu dhiganayay cunugaana waan dhalay lambar 1 ardaygii qaadibana 100 macnaha eeda keenay ardayga keenay macnaha kombiyuutarku barta saddexda bilood hadduu mid ka soo horeeyo macnaha asaga farmiilkiisa jaarkiisa ardada ah ay qabaaniina waa ka sii fiicnaan lahay horta machadkan sidaas uu u kabay ardada haddana waxaan rajaynaynaa in la sii laba laabo waxyaalaha is leeyahay waa u baahan yahay aad ugu baahan yahay waxa ka mid ah laba fasal hal fasal wixii lagu kordhin karo horta lagu soo kordhiyo ardada lagu kabo waayo machadkan macallimiinta hadda joogtay waxa weeye waxay ahayd macallimiin aad iyo aad u firfircoon oo ilmaha wax fahansiinaysa wax fahan marka la yiraahdo waxa weeye markay anigu waxaan oran lahaa oo la ballaariyo fasalada hadda ay ku jiraan ciyaalku aad bay u ciribsan waxyaalaha aan jeclaan lahaa in fasalada la ballaariyo oo guri ka ballaan haddii la helayo la raajo waxay u imaan lahayd ardadu xoog sanad korona waa u timid haddana haddii loogu yeero macnaha way u imaanaysaa laakiin fasaladu waa ciriiri waa aad u yaryihiin marka guri ka ballaaran haddii la helayo in la raajo oo waxbarashadiisa la ballaariyo anigu waxyaalahaas baan garanayaa waxaana leeyahay cid soo qaabisay ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo haddana mid ka sii laaban baa ka rajaynaynaa macallimiinta noo timid tii asaaskeeda lahayd tan hadda joogta tan tagtay kulli waa mahadinaynaa anigu kolley Jiriban maan ahaan jirin muddo hadda ilaa 2 sano baan joogaa maalintaani midna waxa weeye dad arday ah oo dad caruur baan waxaan ka soo xoreeyay baadiye ma sha Allah waxa weeye kolleejkan ka hor haddaan iraaho wax badan ma ay aqoon waxa weeye ma oran karo haddii qof weyn baan hayo haatan ma oran karo been kaba sheegi karo laakiin anigu waxa weeye meeshan gabar baa ii dhigata hadday ii dhigato waxa weeye si fiican bay wax uga fahantay si fiican bay u baratay haddii intii soo aastay iyo inta hadda tagaysa iyo inta hadda hawsheeda haysaba maxad baan u celinayaa oo siinayna hadalka siinayna teacherka ama macallinka qaaliga luqadaas ama aqoontaas aad ka faa'iideen inuu isagana uu ka hadlo teacher Samuel waxaan leeyahay welcome to labadiisa eray ugu soo yiraahdo isaguna teacher welcome. If you are ready you tell me. Go. Okay, thank you. Aniga waa ku weelahay waa ku siinaysaa salaamkaygi kii Soomaali kii Ingiriiska
kulli waa ku sagi jir yes kulli wahay marka hata arday kuwan iyo aabahe iyo hooyadiis waa marka waa soo dhaweyn iskuulkay collegekay waa fiicanahay marka soo dhawo every person you are most welcome. After that, everyone is laughing at me because I don't know how to say this language because it's very difficult sometimes to speak. And by so doing, everyone has heard that we have the students in different levels, as the manager said. And actually, students in here, Jeriban, are very nice students. They are really trying to know something. And when you want to know something, you have to try. You have to be serious and know more. For what we have gone through since we started our college, many students have passed through this Jeriban Technical College, and we are still appreciating and actually welcoming more and more. This parent here, you have seen Dalwen, or what is the name? Mr. Ahmed. He's the best parent in Jeriban for this school. Why am I saying so? Because he's coming every time to check on the student. Teacher, how is my son? How is my other students? He's not only asking for his son, but he's asking for other students. So everyone who is coming over must be very happy because of what he is. I am very happy. I have not seen any other student who has been coming over. And where is Charato? He's not here. Mr. Charato also is a very nice parent who is also coming to us and encouraging us with our students. So therefore, I want to encourage you to bring more students, because already we have the levels that the teacher said, many levels: elementary level, foundation level, intermediate level, and advanced level. Most of the students are going to finish this month. Now, once they finish this month, we need to have the enrollment of other students. So therefore, I'm asking you parents to give us other children so that we can shape them again. We shape them in education way. In that reason, I will have to say that try so much to give us your students or your children, and your children will go well with me. I will try so much to make them look better and have a nice future. ardadii diganaysa inay wax badan ka fahmeen sababta waxaan ka garanaynaa say u qoslayaanin iyo waxa weeye taas waxay ka turjumaysaa in wixii la fahmay aan la sii qoslayn tan xigta aad buu u amaanay waarti qaar uu ka mid yahay Adeer Axmed uu ka mid yahay Charata ka mid yahay waxaana keenayaa ardayga waa sida ula dhaqanto oo aad ugu waxaan halkan salaamayaa madaxda halkan iyo ardayda iskugu timid waalidiinta oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Jeriban macallimiinta macalinka qaaliga ah oo halkan aasaaska u ah ama budigaha u ah Manuel oo aad iyo aad noogu sharxay aan ka fahmnay wax badan haddaan luqadiisa xoogaa ka garanay intii ilaahay naga karsiyey oo ka mid ahayn inuu muxuu ahaa soo dhisay ardada halkan jooga oo asagoo ka bilaabay qayb ibtidaa'iya qaybta dhexe ilaa qayb advance uu gaarsiiyey taasna sida loo sheegay fahamka ay muxuu ahaa heerka ay ka gaareen imtixaanadii centralized-ka oo la soo galay aad baan kelmadda ugu farxay waxaan kaloo ku faraxsanahay in ardada hadda meeshaan wax ka baranaysa inay ku jirto qaybta caafimaadka maadaama anigu aan ahay
mas-uulka caafimaadka degmadan deegaankan waa deegaan ballaaran ilaa iyo 55 tuulo ayuu ka koobnaa waxaa saad ka warqabtaanba waxaa uu leeyahay ilaa iyo 4 MCH ilaa iyo 9 ama 11 health post inkastoo health postkii ay hadda baaba'een laakiin waxaa weeye intaas waxay u baahan yihiin dad shaqaalaha oo u soo baxa meeshay uga soo baxayaana waa waxaa aasaas u ah iskuulkan oo hadda qolyo horey noola soo shaqeeya voluntary isbitaalka uga shaqayn jiray ay dhigtaan ana filahayo maadaama muxuu ahaa shaqadiina yaraatay hadda wixii lagu socdaa waxaa weeye waa imtixaan baa imtixaanada lagu qaataa hadda mar dhow waxaa la qaatay ilaa 5 shaqaale ah 5 shaqaalaha waxaa lagu xiray diblomada ah bachelor waxayna ka soo baxeen muxuu ahaa iskuulaad kale oo boosaaso iyo muxuu ahaa gaalkacyo ay ka mid yihiin oo hadda shaqada galay sidaa darteed ardayga halkan ingiriiskiisa iyo luqadiisa lagu dhisay waxaa u suuragelaysa inuu imtixaankaas kale markuu ka qayb galo oo asaguna uu noqdo the first opportunity halkaas uu ka helo xil wareejinta ah oo qiimaha iyo qaayaha leh waliba aniga oo kamid ah ardada halkan wax ka bartay aniga oo kamid ah asaasayaasha guddiga ahaa talo badan sheeganaya maantay dadkii guddiga ahaa college-kan runtii kasoo shaqeeyey aad baan ugu faraxsanahay isagoo maanta midhalkiisii ardo badan oo jaamacada dhigta iyo kuwo badan oo shaqeeya ay ka baxeen aad baan ugu mahadcelinayaa guddigii dadkii qurba joogta ahaa ee kusoo baxshay juhdiga badan iyo jeebkooda lacagta ku bixinayay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa maamulihii guud ee macadkan aadan maxamed cigaal sheekh aadan sidoo kale macallimiin maamulihii hore cabdirasaaq tuutaal oo maqan maamulaha hadda xilka wareejinaya maamule Abbas iyo maamulaha cusub naftiisa kusoo dhaweynaya iyo macallimiinta waliba macalinka qaaliga ee Samuel oo runtii aad iyo aad wax noo baray runtii anigu wax badan baa hadda waxbarashada ku jiray laakiin runtii ingiriiska waxda waxbarashada ma dhamaato laakiin runtii waxaan oran karaa waxbarashada ingiriiska aan halkan Samuel ka bartay runtii wax badan buu nolosheeda ka bedelay waxbarashada waxaan maleynayaa dee hadda iska oday weyn oo aabba baan ahayo muddo 10 sano ku dhawaad iska shaqo iyo xamaala ku jiray laakiin hadda Samuel markuu ingiriiska ay dhigay waxaan dib ugu soo noqday inaan jaamacadayga hore u sii wado dhiirigelin baan iyahay runtii iyo heer aan ku faraxsanahay haddana inaan maanta baashtii labaad wado aad baan ugu faraxsanahay jaamacadaha ka wado waxayna keenaysaa in waxbarashadu aysan dhammaan horumar fiican leedahay runtii waxaan u mahadcelinayaa guddigii odayaasha ahaa oo aniga Farxaan Faarax iyo aan ka mid ahayn runtii nin qaali u ahaa oo meesha waqti badan ku lumiyay oo maanta runtii ilaahay ha u naxariisto maanta mootan isna waa u mahadcelinaya ilaahay ha u naxariistana waa leeyahay Sultan Cabdisiid Cali Cabdille runtii in la xuso ayuu mudan yahay oo waxaan xasuustaa habeen iyo maalin baa soo ismacadka inuu maanta heer gaaro soo jeeda xasuustaa runtii marqaatina ka ahay ilaahay waxaan leeyahay u naxariisto runtii inuu macadkan socdo oo maanta heerkan gaaro oo intaas arday ay ka baxdo oo rajriiban ay ku faanaan dad badan baa waqti badan ku soo bixiyay waxaana qofkaas uu sharaf u ah wuxuu juhdi ku bixiyay inuu wixii wax shaqeynaya noqdaan waxaan rajeynayaa dadka kale oo deegaanka jooga haday yihiin maamulka oo hadda nagala jooga maamulka xogeenka gudoomiyaha xogeenka degmada Mursal iyo ragga dadka magaalada ka shaqeeya ganacsatada dhamaanteed inaanu garab istaagi doono haddaba aanu wax baranayna juhdigaas aanu qayb ka noqon doono macadka inuu sii socdo aanu ku faraxsanahay insha Allah sida jaamacadda oo kale sida doctorku sheegay oo hadda la sheegay oo kale oo ah arday maalin kasta dadka imtixaan ka qaada ka imaanaya gaalkacyo garowe iyo boosaaso waxaan rajeynayaa in sanaha soo socdo ama hadda wixii ka dambeeyaba macadkeena Jariiban Technical College iyo jaamacadda Jariiban iyo wax dadka la ka soo baxa in ayagana la siin doono tixgelin gaar ah ayaguna ardaydaas noqon doona ardayda boosaska buuxiyo oo degmada ka shaqeeya runtii qofka degmada ka soo baxay asaga wax ku bartay iyo qofka banaanka yimaada waxaan aaminayaa inay xawaa difference kala leeyihiin ay kala duwan yihiin waxaan rajeynayaa in ardada meesha wax ka barata hadda inay iftiin fiican iyo horumar u socoto waxaan rajeynayaa isbedelka maanta maamulka cusub iyo sanadka cusub in arday badan ka faa'iideysato bismillahir rahmaanir rahiim
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة الإسلام كان سلام يا دمانتين أخيارتا meeshaan iskugu imaatay ugu horeeya gudoomiye ku-xigeenka degmada Jariiban, gudoomiye Mursal, Cabdulle, guddiga asaasayaasha macadka Jariiban Technical College oo nagala joogo gudoomiyaha guddiga Master Cabdicasiis Cali Mire, Dr. Timir, macallimiinta macadka iyo macallimiinta kale oo nala joogta dhammaan marti sharafta ardada waalidiinta salaanta islaamka waan ku salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad hadal badan oramayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo si gaar ah sida hore loogu mahad celiyey waalidiinta ay nagala joogaan adeer Axmed iyo inta la mid ah ee dadaalka geliyey sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ardada muujiyey kalsoonida nafeed iyo midda deegaanba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadkii ka qayb qaatay aasaasidii iyo furitaankii iyo bilaabadii ee ku dhiiraday inay dadkooda wax taraan wax ku celiyaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo macallimiintii ka soo shaqaystay macallin Samuel ugu horeeyo macallin Cabdirasaaq Cabdiqaadir Yuusuf macallin Cabbaas Dr. Axmed Sheekh Axmed Dr. Nimco iyo macallimiintii kale oo la soo shaqaystay ayagana u mahad celiyaan rabaa shaqada adag ay soo qabteen waxaan rabaa sidoo kale u mahad celiyo dhammaan bulshaweynta reer Jariiban alxamdulillahi rabbil caalamiin ayagana meeshaan waqtiga fiican iyo waxbarashada ka qaadatay ee muujiyey waxa weeye inay bedeli karaan jiilkii hore ee Jariiban ayagana u mahad celinayaa si gaar ah waxaan rabaa inaan mahad celinteeda ku soo koobo saaxiibkay maamulihii hore ee macadka macallin Cabbaas Cabdiweli Kaboose oo run ahaantii xilka maanta aniga ugu wareejinaya sidii shalay asaga loogu wareejiyey Cabdirasaaq ugu wareejiyey intaas waxaan ku soo koobaya mahad celinteeda run ahaantii reer Jariiban haddaan nahay annaga fursad gaar iyo nasiib gaar aan yeelanay nasiib dadku waa wada helaan baalay laakiin inay ka faa'iideystaan ma wada helaan inay ka faa'iideysto nasiibka heshaa xataa nasiib labaad marka annaga ma sha Allah nasiib laba nasiib baa isku raacay inaan fursadan qaaliga helnay iyo mar labaad inaan ka faa'iideysanay 2016 maraan joogay iskuulka Buurtinle baa waxaan ku arkay meel magaalada ka baxsan oo leh diyaarateer waxa ku qornayd inay Buurtinle jaamacad naawilayso markaas ilaa hadda sidii diyaarateer ku yaala wax jaamacad laguma dhisin annaga wax kharash iyo wax codsiya iyo wax baahiya muujin baa waxa naloo keenay macadda iyo jaamacad iska ordaya waxa naloo keenay waxbarasho free ah waxa naloo keenay in hanti lagu baxsho waliba marka waxaan leenahay dadkii intaas horay noo gartay abaalkooda iyo ajirkooda ma soo koobi karna waxaan leenahay ilaahay meel ka wanaagsan iyo ajir iyo abaal ka badan ilaha siiyo insha Allah waxaan rajeynayaa sidii macallimiinta hore iyo maamulayaasha hore loola soo shaqeeyay si ka fiican ay la shaqeeyeen والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت وين السلام هيا ما شاء الله ومركي لبعض أو فريتان أما حفلة لا عارف له عن كلش كلاس وقيب قلو إلهي ما هذا سكله وجوده قلبت محمد ده inay u badan yihiin ardadii wax baranaysay iyo macallimiintii iyo ma garanaysaa waalidiintii ma sha Allah waxa weeye dadku cilmu waxa weeye adaa u imaanaya soo kuma imaanayo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay inma al-ilmu bita'allum cilmu waa barasho هذا قريه فردان علمه إني إيمان ما يقولوا يقوسوا قلمي وحن شاء هاي ما شاء الله وسنة كيلوات بأم لنا يا وأن هالك كان علمه دكتان أما معنا عرضه دكتور dad badan baana garaashad gareeyay hadda oo maanta igu yartay waxa dhiganaya oo markii waxaan jeclahay igu yartaa hadda safa saxbada lagu maqan yahay oo tuitionkii hadda uu soo bilaaban 124 320 caafimaadka ku jirta say leeyni sheegay 6na waxay dhigataa computerka oo iyaguna way macnaha ay hadda dhameynayaan
95 luqaday dhigataa luqadoo kala duwan oo pre elementary ku jiro ay ku jirto elementary advanced uu ku jiro kolley waxa weeye dadku qaar badan oo ka baxana way jiraan annaga alxamdulilahi waxaa weeye muhiimadeenu iyo waxaan u aas-aasnay iskuolka kan waa aqoon la-aan waa iftiin la-aan aqoon la-aan waa iftiin la-aan inaa waxbarataan ayaanu annagoo meelo fog joogna aanin kuu fakeray inaa waxbarataan inaa ummadda wax tartaan inaa ilmihiina ad dhashaan wax tartaan inaad degmada wax tartaan inaad gobolka wax tartaan insha allahu fasalada hadda la dhigto waxaan jecel lahay inaan ku daro management classes isagan in lagu daro ama class kaloo ah vocational training in lagu daro vocational training in lagu daro waxaan jecel lahay in aan meel weyn helo oo jaamacad loo dhiso macnaha meel weyn loo dhiso laakiin waxa weeye waa inaan aragnaa dad badan oo waxbarasho diyaar u ah dad badan oo waxbarashada diyaar u ah maasha allah waxaad hesheen jaamacad baa hesheen reer jariiban haddaad tihiin collegekan baa hesheen mid kale oo isaguna carabiyana waa la furi doonaa insha allah ilmuhu ma ahan waxaa loogu talagalay qofka ilmuhu markaad dhasho qaar waxaa la ii sheegay hadda ilmuhu aysa waalidka udhiganin dugsiga aysa iskuulka udhigan oo xataa aysa dugsiga dhiganin ilmuhu waxa weeyaan 18 sano 17 sano waxaa la rabaa 21 sano markuu gaaro inuu isku fillaado waxay dhahaan culummada luqadda macnaha culummada qaar waxay dhahaan ilmaha 7 sano lala cayaaraa khaddaa la baraa 7 sanona waxaa la baraa aqoonta la baraa yacnaha waa intuu 14 sano ka gaarayo cunugu 7 sanona waxa weeye waa lala saaxiibaa oo asaga waxbaranaya wuu bartayba markaas aqoontiisii asaga markaa ku noolaanaya marka anagu waxaan rabnaa waddamada banaanka gaalada marka loo baxo dadka waaweyn oo waxbarashadu dhaaftay waxbaa la baraa kuwa yararkaan waxbaa la baraa marka anigu focuskeenu ma aha keliya in dhalinyaradu ay waxbarato no left behind qof kaste oo degmada jooga in waxbartaan rabnaa oo luuqadda ku shaqaysto haddana waxaa inii soo socda mashruuc weyn oo waxaa inii soo socda dekeda inii soo socota dekedu qof kaste xamaali ma heli doono dadka o dhan xamaali muwada noqon karo qof kaste qofka dadka o dhan waardiya muwada noqon doono qof kaste inuu at least basic englishka barto basic computer barto baa loo baahan yahay so markuu xafiiska u tago oo la yihahdo maxaa taqaanaa inuu yihahdo anigu waxaasaan aqaanaa imtixaan laga qaado oo shaqa uu heli karo mashruuca hadda soo socda east africa oo dhan baa shaqo ka heli karta laakiin ceeb calaynaa inaa anagoo degan meesha tan hadhow shaqaalo loo doono dekeda meel kale looga doono idinkuna ina waxbaran marka anagu wixii nagu aadanaa waanu keenay waxaan umalaynayaa mar horaan rag aan meesha degmadatan arag baa xataa iskuolkan wax ka baxsha lacagtiisa anaga laftigeena wax mar horaan noogu dambeysay degmadatan laakiin degmada waa u dhalanay maasha allah waxa anagu aan ku faraxsannahay inaad waxbarataan si hadhow aad magaranaysaa fuujarka aada ummadda wax tartaan insha allahu waqti waa kooban yahay casharka inaan waqti badan intaa ka badan aan qaato ma rabo aad baan maanta ugu faraxsanahay master well I'm happy to see again بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan waxaan salaamayaa inta meesha fadhido xafladda fadhida nooc kastoo ay isugu jirto dadka haddii la magmagacaabo qof ama labaa laga tegayaa sidaa darteed annagoo wada garanayna ayaan si guud u wada salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa qodobo yar inaan taabto waqtigoo gaaban awgiis hadal badan baa igu jiray laakiin qayb baan la haraya waxaan taabanayaa qodobo yar yara oo qaybina ay tahay tala bixin qaybina ay tahay su-aal aan weydiinaya reer jariiban qaybina ay tahay baaq halkaan aan ka diray waxa weeye reer jariiban
iftiin baa u baxay iftiinkaas wuxuu ugu baxay dhanka waxbarashada iyo dhanka caafimaadka iyo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha intaba waxa u baxay iftiin saa og tihiin jiriiban waktiga la aasaasay isbitaalka degmada jiriiban anigu halkaan baa xildhibaanka ah xilliga la aasaasay waxaa loo keenay doctor timir waxaa ku xigtay kulleejkan iyo jaamacadda iyo dekedda oo socotay markaa intaa oo isku sanad ah kama dhacdo isku meel degmo ah oo noocaan oo kale ah waxaa nasiib u yeelatay jiriiban halkaan hadda in badan baa ka hadashay oo dad ah oo reer jiriiban ah kelmad maskaxayda ku jirtay waxaa taabtay qof ama labo bini aadamku waxay leeyihiin mahad celin wax la yidhaaho waxaa sharciga qofku inuu abaalgudo hadduu abaalgudi waayo qofkaasi muslimna maaha iimaanna ma leh yaa loo abaalgudaya maxadkan ma innaga reer jiriibanaa dhisannay ma innagaa dhaqaale ku bixinay ma innagaa fakarnay ma innagaa keennay intaynu joogtay jaamacadda sidoo kale wey yaa fakeray oo keenay waxaa keenay jaaliyadda qurba joogta oo reer jiriiba gabdho iyo ragba waxay inoo dhiseen jaamacaddii waxay fureen kulleejkii maxadkii bay fureen waxay dhiseen isbitaalkii waxay maalkooda ku bixiyeen dekeddii inaan xusno marka baa layna ka rabaa horta waxaan leeyahay haddaynu nahay ardo iyo haddaynu nahay waalidiin iyo haddaynu nahay mas-uuliyiin xaqa waxa layna ku leeyahay yaynaa gafin marna yaynaa ilaawi dadkeenna qurba joogtaa jaaliyadda reer jiriibana gabdho iyo wiilalba ah waxaa layna ka rabaa inaan u mahad celino dhaqaala siin mayno halkaan uga diri mayno iyagaa dhaqaalaha ina ku bixiya waxay ku bixiyaan ilmaheennii waxay ku bixiyaan waayeelkeennii waxay ku bixiyaan dhismaheennii waxaan leeyahay taas yaynaa ilaawi dadkan hore usoo sheegay yaynaa noqon halkana waxaan kaga faa'iidaysanayaa galabtay insha allahu tacaalaa jaaliyadda reer jiriiban gabdho iyo wiilalba waxaan uga mahad celinayaa iftiinka reer jiriiban u baxaya oo uu kow ka yahay kulleejkaani jaamacaddu ka mid tahay ma koobi karo way badan tahay waxaan leeyahay walaalayaal waa idin mahad celinaynaa waana idinka abaalgudi doonaa ilaa xaggiisna abaalgud baa ka heli doontaan waxaana idinka codsanayaa inaad sii wadaan si dadku mugda uga baxo intaa markaan mahad celinta uga gudbo tala bixin baan usoo jeensanayaa tala bixintaa waxaa weeye walaalayaalow maxadka kan innagaa leh jaamacaddana innagaa leh dugsiyaasha ilaa hoose dhexe sarena innagaa leh waxaan ka codsanayaa macallimiinta jaaliyadda bannaanka joogta odayaasha ardada waalidiinta intaa in la isku xiraado rabaa ay isku xiraadaan wax kale qoqobana aysan jirin wax la kala leeyahay aysan jirin ilmuhu uu isu mara intaas waxbarashadu waxay leedahay ilmuhu inuu ka soo bilaabo dugsi hoose dhexe inuu u gudbo secondary inuu secondary intuu dhiganayo maxadka maro kabacda jaamacadda inuu gudbo intaa inay isku macallimiin noqoto isku tala inay noqoto ilmuhu inuu isu maro waalidkuna inuu sidaa hadda hore loo soo sheegay sida oday axmed oo kale in sidaa loo daba joogo saa ogtiin dhib baa jirta hadda dhibtaa ilahayna ka badbaadiyo halkaan waxaan shahaado guddoonsiinay 3 gabdhood iyo 1 wiil galab dhaweedna waxaan guddoonsiinay shahaado dad badan oo markii la isku celiyo 3 meelood gabdho tahay horta waxaan leeyahay gabdhuhu way xaqiraayeen awal saa ogtiin Soomaalidu gabdhaha waxaan bari jirin wiilasha wax bari jireen waqti baa u soo wareegay gabdhaha ka faa'iideysta waqtiga ay soo wareegay ka faa'iideysta kulligeen wiilal baa idin la dhashay guryaha idin la joogaan kubadday dheelaan marna waxay fiirsadaan telefoon iska dhigay inuu telefoonka iska daayay wax barta sida doctorku uu sheegayay dadka la qaadanayo oo loo qaadan doono caafimaadka reer jiriiban ama loo qaadan doono shaqada sida uu gudoomiyuhu sheegayay dekedda noqdo idinku marka wax barataan idinka noqonaya wiilashuna xamaali bay noqonaya samid tuurta ku qaadaya waxaa la rabaa tartan noocaas inuu yimaado ka yimaado iskuul kasta
inuu ka yimaado jaamacadda inuu ka yimaado guriga intaasaa la rabaa samuel oo kale macallimiinta lala yimaado waddanka timaada qaybo badan baa la eedeeyaa waa la beddelaa waa la dhaliilaa samuel waxaan leenahay soo dhawow kolleejka waxaan leenahay ha guulaysto waxaan leenahay waxbarashada taqriiban ha guulaysato ku soo dhawaada walaalayaal waxbarashada ha la mideeyo insha allahu tacaala qoladiina